بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaynu la wada soconay in guddida dhexdhexaadintu ay muddo ku howlanayd inay axsaabta qaranka kuwa mucaaradka iyo xisbul xaakimka kulmiye labadaba ay la kulmaan, ay weydiiyaan khilaafaadka lagu tilmaamay inay ka jiraan xisbiyada qaranka. marka ugu horeysa xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u ahaa ilaa intii xukuumadda imika xilka haysa ay xilka la wareegtay in la diyaariyo, la fuliyo arrimaha doorashooyinka labada gole ee wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo ku ekaa inay doorashadoodu qabsanto bisha March ee sanadkan hadda dhammaanaya 2019. waxaanu la bilaabay wada hadal bilowgii bishii March 2018 iyadoo kulankii ugu horeeyay iyo kulamo kale oo dooraba uu martiqeliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi. heshiiska waxaa lagu heshiiyey inay doorashadu sideedii ku socoto, in xisbiyada qaranku ay ka shaqeeyaan kana wada shaqeeyaan abaabulka iyo diyaargarowga doorashada, isla mar ahaantaana ay la shaqeynayaan komishanka qaranka, komishankii hore ee waqtigiisu dhammaaday. maxaan ku dhahday xisbiyadu ay ku heshiiyeen in guddi 15 ka kooban oo saddexda xisbi oo min 5 qof ah ay komishanka doorashada la shaqeeyaan, iyaguna ay arrimaha doorashada ka shaqeeyaan. arrinka isla bishii March dabayaaqadeedii waxaa xisbiga wadani uu soo saaray qaraar odhanaya komishanka doorashooyinka in xilka laga qaado. taasina ay tahay arrin sharciyadeeda axsaabta qarankuna aanay lahayn, madaxweynuhuna aanu lahayn. muddadaas hadday socotay muddo 18 bilooda waxaa diidanaa komishankii doorashooyinka ee xilligiisu uu dhammaaday in ay xisbiyada mucaaradka ay la shaqeeyaan. taasi waxay si buuxda isu hortaagtay inay qabsoomi kari weydo doorashadii 2018 iyo 2019. doorashadii waxay ku ekayd inay qabsoonto bisha November 12. taasi waxay keentay markii komishankana doorashada xilligeedii uu ku ekaa 29 bishii November ee aynu soo dhaafnay inay lagaba maarmaan noqotay oo xal kale la heli waayay in muddo kordhini ay ku timaado qolihii lagu dooranayay iyo doorashada xilligii la qabanayay. taasaa horta marka ugu horeysa keentay inay guurtidu muddo kordhinta samayso. waana golaha qura ee dastuuriga ah ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu siinayo inay muddo kordhin samayso hay-adaha qaranka ee la doorto inay muddada u kordhiyaan. sanadadii horeynu soo dhaafnayna iyo dowladihii hore kala dambeeyena xilliyo badan baynu soo dhaaftay. ugu dambeyntii guddida dhexdhexaadintu waa odayaal, ixtiraam bay leeyihiin, ixtiraam baanu siinaynaa. waxa ay soo saareen qaraar bay soo saareen. qaraarka ay soo saareen 5 qodob buu ka kooban yahay. 5 qodob 2 qodob waxay khuseeyaan komishankii hore iyo komishanka cusub. xisbiga kulmiye waxa uu si buuxda u taageerayaa qaraarka ay soo saareen, ayuu si buuxda u taageeraya.
waxaa kale uu taageerayaa tilmaanta ay raaciyeen ee odhanaysa waxaa loo marayaa ama waxaa loo raacayaa dariiqa sharciyadda dalka. waayo commissionka cusub qaraarka ay kasoo jeediyeen iyo commissionkii hore qaraarka ay kasoo jeediyeen waxa weeye labaduba waxay ku xidhnaanayaan in loo raaco maxaan ku dhahday sharciyadda dalka. annaguna taasaanu ayaanu taageersanahay. qodobka odhanaya xukuumadda iyo xusbiyada mucaaradkiihii inay ka waantoobaan oo dadaal ka muujiyaan inaan mas-uuliyaddooda iyo hadaladooda iyo curfigoodu inaanu noqonin qaar keeni kara inay nabadgelyada qaranka dhaawacdo. ummadda reer somaliland waxaan u sheegayaa aniga ku hadlaya magaca xusbiga kulmiye in xusbiga kulmiye mar walba uu taageersan yahay, mar walba uu ku dadaalayo, mar walba habdhaqankiisu ay ku qotonto inaanu mas-uuliyadihiisa xusbiga ee heerarka kala duwan ilaa heerarka u sarreeya ilaa heerka u hooseeya aanay ku hadlin curfi keeni kara dhaawac umadeed, kala qaybin umadeed, xasiloonida dalka iyo nabadgelyadiisa mid dhaawici kara inaan lagu haynin saxaafadda maxaanku dhahday mar walba lala kulmo. xusbiga kulmiye aada iyo aad buu qodobka u taageerayaa. wuxuu ballan qaadayaa, cid walba u ballan qaadayaa, ummadda u ballan qaadayaa, bulshada caalamka u ballan qaadayaa in xusbiga kulmiye uu diyaar u yahay inaan haba yaraatee wax hadala oo xanaf leh oo kala qaybinta ummadda maxaanku dhahdayay dhaawaca waxyeeleeya inaanu odhanin, isla mar ahaantaana nabadgelyada qaranka inaanu maxaanku dhahdayay aanu dhaawicin. xusbiga kulmiye ilaa waqtigii aan kasoo sheekeeyey ee la bilaabay bishii march 2018 wuxuu mar walba diyaar u ahaa komishinka qaranka ee jooga inuu la shaqeeyo. wuxuu diyaar u ahaa inuu doorashada ka qayb galo. hadda maanta wuxuu diyaar u yahay inuu doorashada qaranku inay dhacdo, inuu soo dhaweynayo xusbiyada mucaaradka inay arrinta doorashada kana wada hadlaan, kana wada shaqeeyaan sidii doorashadu ay u qabsoomeyso. xusbiga kulmiye diyaar buu oo arrinkaana u yahay. qodobka odhanaya arrinta guurtida iyo muddadeeda waa anigii sheegay, golaha guurtidu qodob dastuuriya baa u ogolaanaya in xilliyada ay suuro geli weydo in doorashadii xilligii loogu talay ay qabsoonto, golayaashii doorashada loo qabanayena xilligooda uu dhammaado, inay iyagu yihiin cidda qura ee qodobka dastuurku mas-uuliyadda u siiyey inay go-aamo ka gaadhaan. marka ugu horeysa waxaan taageeraynaa annako oo aanu aaminsanahay ilaa ummaddu dastuur bay leedahay, dastuur baynu qoranay, dastuurkaynu ku kala soconnaa. qaran kasta oo adduunyada ka jira wuxuu ku socdaa waa dastuur iyo qawaaniin ka dheeganta. haddii aan dastuurku jirin, qawaaniinta ka dheegmaysaana aanay jirin, cid waliba aanay u hogaansamayn, qarankaasi qaran jira noqon mayso. dhaawacyo hore oo qarankii soomaaliya la odhan jiray kasoo ku dhacayna waxay noqotay in dastuurkiisiina la raaci waayo, qawaaniintiisa kalena la raaci waayo. dhaawacyadii wixii la ogaabaa ka dhacay. annaga waxaanu aaminsanahay oo ixtiraamaynaa mar kasta iyo xilli kasta iyo munaasabad kasta in loo hogaansamaado oo aanu anaku u hogaansanaano dastuurka qaranka iyo qawaaniinta kale ka dheeganta. cid walbana waxaanu leenahay xusbiyada qaranka kulmiyada xusbi dad iska leeyahay oo aan sharci ku dhisnayn oo aan qaranka meel la ka soo gelinta maaha. axsaabta qaranku waxay xusbi qaran ku yihiin waa dastuurka qaranka Somaliland. doorashada iyo tartamaduna waxay ugu qabsoomaan
xeerarka dastuurka ka dheegmay oo maxaan ku dhahday lagu shaqeynayo taana waxaanu leenahay waxaanu aragnaa inay tahay maxaan ku dhahday qodob dastuuriya golihii xaqa u lahaana waa arrinkaa jeediyey arrimaha doorashada axsaabta qaranka waxaan leenahay xisbiga diyaar buu yahay inuu maxaan ku dhahday ay wada shaqeeyaan waxaan cid walba xasuusinayna xilliyadii hore wada hadaladayadii muddada 2 sanadood ee soo socdayna dee waxa ay ku bilaabantay gogashii uu madaxweynuhu fidiyey haddana munaasabadii maalintii dhaweyto heerka qaranka ahayd ee lagu daahfurayay freesonka ee arrimihii dekada berbera madaxweynuhu wuxuu halkaa ka sheegay inuu fidiyey kulan iyo martiqaad labada xusbi qaran kulankaa way diideen waxaanu ummadda u sheegaynaa martiqaadkii madaxweynuhu fidiyey sidiisiiba u yaalaa xusbiga kulmiyana wuxuu diyaar u yahay inay arrimaha ka wada hadlaan qabanqaabada doorashadu had iyo jeer waxay ku xidhan tahay iyo muddadeedu saddexda xusbi qaran shaqada ay ka wada shaqeeyaan arrintan iyo sida ay ula shaqeeyaan komishanka qaranka iyadoo mar walba la raacayo jadwalka ay komishanku u dhigaan hanaanka iyo marxaladaha kala duwan ee ay marayso maxaan ku dhahday doorashada kaana diyaar baanu nahay hadday soo gaabanaysana diyaar baanu nahay hadday sideedii ku socontana maxaan ku dhahday diyaar bay